inteenan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin daawade haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad subscribe dhahdid channelkan sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan ha ilaawin inaad like saartid mahadsanid aan u galno muuqaalkeen waxa garabkayga fadhiya walaalkay maxamed saciid cabdi si kasta ay haataba maxamed maanta barnaamijkan wadna maaha barnaamij faneed laakiin waa barnaamij aad u qiimo badan waxa ku soo dhaweynaya barnaamijka walaalkay maxamed saciid cabdi ku soo dhawaad aad baad mahadsantahay hal abuur cawl bile aad baan ugu dhowahay adiga asxaabtaadan qaaliga kabarda naga duubay adigaba waad mahadsantihiin ma kule ma sha Allah maxamed waxa jirtay arbacada balan aad qaaday oo tiri aad baahisay in dhammaan soo gabagabeyn doonto sidaana ku jirin doonto fanka kullu dadku waxay isweydiinayaan maxaa ku kalifay maxamed cabdi inuu fanka ka baxo horta aad baad mahadsantahay su'aashaas waa muhiim su'aashaas waxa igu kalifay waxa la igu bushkareeyay maaha waxa cadaadis iga yimi maaha familiga waa wax dar ilaahay aan goostay inaan iska daayo oo ku faraxsan mid kale waxa igu dhacday qisadan mar hore inaan joojiyaan doonayay 15kii marka mar walba xasaasarku ka go sanad hadhowdeed dib ugu laaban ma sha Allah marka dar ilaahay bay iiga timi ma sha Allah taasoo doonaysid dad ka baxay oo ku soo noqday baa jira taas ma sha Allah fanka dadka waxa jira ku jira iyo dad aan ku jirno tuunsan oo gartay oo ku tuhmaya dunin laga helo kale fanka maxaa hanti ah oo laga dhaxlaa fanka waxa laga dhaxlaa magac ma sha Allah lacagtiisuna waa taburcad badeed oo kale oo iyada koonaysa isoo saar oo ibixi wax meel wax laga dhigto ma jirto fanka magac un baa laga dhaxlaa insha Allah waxa jirta kulli marka fanka baxaysay aad gabag tashatay dadkii isku miinad hay'ad u bandhigtay la wadaagtay sidee bay arkeen bay kala saar horta markii ugu horeysay way ogeed xaaska waan u sheegay mar labaadka hooyo aad u jeclayd inaan ka baxo fanka أنا بسلام ديري أنا أدو شعلهاي يشوف دياش هو شعلهاين دينا مرة على ويري بيتري هوي إلهي واحد عمها كوجو بدل أمين بانجانو ما شاء الله تي هوي إلهي كوابلا ما شاء الله واحد شراء كلهم كويدين يا فنكا واتكب حلي وانا تشكت سات شايسي محاكو قرشي سنة بوسكي فنكا تكون بدشوا هرت فنكا دير إلهي بانو كبحي ما شاء الله waxana ay ma qorshaysna markaad hor ilaahay u baxdo ilaahay markaad hor ilaahay si taagto ilaahay wuu ku siinaya adigu ma sha Allah marka in aan wax fiican dhalinyarada wacyi gelin u sameeyno oo aan isla kaashano dad badan ayaan ku rajaweynayaa iyo ganacsi inaan iska galo oo wada kale ba banaan sax ma sha Allah dadka qaar waxay isweydiinayeen in dhowr cishay sir weydiinayeen maxamed arbacadu ayuu sameynaya way arintaas in yiri jiitanto dhowr cisho la yiri suugo sabab hal abuurood naadsantahay su'aalaha caawa way fiican ma sha Allah waxa sababay dam wad xaamxaamanaysayo oo khasabde anigu mar hore iga soo go'day laakiin dadka jawigooda iyo taageerayaasha iyo xulbaan eegaya marka taageerayaasha meel kasta joogan Soomaali umada Soomaaliyeed si sharaf ku noolad meel kasta joogtaan fankayga jeclaa waxaan leeyahay isoo raacada heegaarine xaggan isoo raaca khayr kalena insha Allah hay waa hagaag hadalkaaga ugu dambeeyay weeye dadkii aad isku miinadahay fanaaniinta ahaa isku miinadahay mar fanka wada bilowdeen iyo taageerayaashaadaba hadalka ugu dambeeyay ku soo go'aysa leedahay waad sii faraysaa ma sha Allah horta waxaan oranayaa laburow caafimaadku waa raacisi sharaf meel kasta joogtaan umada Soomaaliyeed dadkii aan isku shaqada ahayn fanaantu waa dad qalbi fiican waa dad ilaahay ba siiyo hal abuur leh laakiin xaga khayrka oo soo bata yibidina khayr ku bedel baan oran lahaa taageerayaasheedii waxaan oranayaa isoo raaca hayga harinay wadadana runtii tan isoo raacan Allah ma sha Allah aad baad u mahadsantahay umada muslimka meel kasta joogtana waxaan leeyahay asiya sharaf ku noolaada ma sha Allah ما شاء الله aad baa maasantay walaalkay maxamed saciid cabdi si kasta ay haataba barnaamijka soo gabagabeynayna barnaamij aad u qiimo badan maaha barnaamij faneed ama barnaamij suugaaneed waa barnaamij runtii maxamed bike ku shaacinayay inuu joojiyay dhamaanba wixii fanka loo oranayay
alaburo ada ku haystay dadku waxay lahayn mala BK dhab kama hay waa baraag ma hay waa dhab weey insha Allah aad intaas kelmadaasna waa kaftan dadkii hore uga baxay fankana aad baan ugu hambalyeynaya gidigina waan wada salaamaya iyadoon cidina ay joojoomin niyadeydana waxna ka imaatay ma sha Allah aad baa mahadsantiin asi sharafna waa